nin Soomaaliyo dhulkiisa iska aamino iska joogay baa waxa dhacday shaqo la'aan baa ku dhacday 6 sanadood oo shaqo beel ku dhacay maalintii dambu fikru yiri war heede waa tan cadaad noqotay sheekadii maxaad sameeysaa fikir buu keenay fikir buu aabulay wuxuu yiri dhakhtar bas ka noqdo waa nin aan aqoon lahayn dhakhtar buu noqday board buu wuxuu ku soo qoray hadii wax lagu daweynayaa $100 hadii lagu daweyn waayana waxa lagu siinayaa $50 hadii lagu daweyn waayo $50 baa adiga lagu siinayaa $100 aad oo haysta ayaa $50 lagu darayaa waliba ay ku soo qoray board nin de xagan Yamanaha ka yimid oo maskax iyo wax iska baadbaadisay ayaa u soo fikiray dhakhtarkii buu yimid dhakhtar waa doctor waan xanuunsanaya buu yiri xagee ku xanuunsan buu yiri markaasuu yiri dhadhankiiba iga lumay oo carabkayga waa bilaadhana oo dhadhankiiba waa laay dhadhankiiba ka lumay kalkaaliso buu yiri dawada ku jirta sanduuqa 22 ka soo saaro laba dhibcood afka kaga shub inta ba dhaqaaqdo walgebi soo saartayo kala qaad afka way ugu shubtay allah buuri baalkan waa shidaal ma afka ugu shubtay hambal iyo baalay aar uu ku soo noqday dhadhankaaga iyo ka lacag waa laga qaaday maalintii dambu xanaaqay isagoo cadhan nafta ka baxsato jiqa ayuu soo fikiray hadana fikir kale ka buuri uu soo noqday wuxuu yiri xusuustii baa iga luntayo bila xusuus baa xusuustii baa ka luntay way buuri kalkaalisay buuri sanduuqa 22 dawada ku jirta ka soo saaro laba dhibcood afka ka sii alla beesha iga digtoor buuri taas waa shidaalkii baaltiye ambal yabaal oo ku soo noqday xusuustii ka lacag oo ka qaaday lacagtina waa laga qaaday maalintan saddexaad ku darsay uu siro maalintii saddexaad uu soo noqday isagoo isla wixii dhan kaba duwan balla imatay oo sheeka aan ciibo ku ogeynba waa ka yirun aragii baa wallahi waa indhalaahi buuri meedan indhalaaha hadaan anagu ma hayna taa dawo ma hayna baa leeyahay hoowa kan ka tokaagi doolay waxa loo dhibay $20 san weeyay wuxuu yiraahdaa waa $10 day hambal baa leeyahay tan kan $100 kan inta san kaga baxaya